Banaanbax ballaaran oo laga soo horjeedo mucaaradka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu ka soconayaa meel aan ka fogeyn guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xaaladda magaalada Muqdisho iyo dibadbaxan mucaaradka laga soo horjeeday cidda soo qaban qaabisay. Soo dhawow muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo sida aad u aragto. Ma is leedahay mucaaradku way ka guuleysan doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mise madaxweyne Xasan ayaa mucaaradka ka adkaan doona oo xukunka sii joogi doona wixii ka dambeeya 15 bisha May oo ay ka harsan tahay wax ka yar 4 maalmood hagaaga. Sida la socotaanba magaalada Muqdisho caasimadda dalka shalay oo ku beegnay 10 bisha waxaa loo ballansanaa dibadbax weyn oo mucaaradka ay abaabulayeen, laakiin sida muuqatay dibadbixii ayaa gebi ahaanba dowladda federaalk Soomaaliya hor istaagtay kadib markii guryahooda ay ku go'doomisay isla markaana ciidamo ay dul dhigtay madaxda mucaaradka ee dibadbaxaasi horkici lahayd, taasoo keentay in xubnaha mucaaradka ay guryahooda ka soo bixi waayaan. Ugu dambeyn galikii dambe ayaa xubnaha mucaaradka waxay heleen nafis kadib markii ciidamada laga dulqaaday, waxaana ay bilaabeen dibadbaxyo iyaga oo sheegay in dibadbaxyada ay sii socon doonaan. Maanta waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaraan nawaaxiga Mirinaayo uu degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ka socda dibadbax ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir, kaasoo la sheegay in markaasi looga soo horjeedo mucaaradka iyo sidoo kale dibadbaxyada ay ka abaabulayaan magaalada Muqdisho. Dibadbaxayaasha maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyay isla markaana uu soo aruuriyay ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo markaasi lid ku ah xubnaha mucaaradka ee golaha mustaqbalka, iyaga oo si gaar ah u beegsanayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. Erayo xanaf lehna markaasi ku weerarayay. Erayada ay markaasi dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen waxaa ka mid ahaa dooni mayno dagaal, dooni mayno mucaaradka, waxaana taas lagu fasiray inay tahay in dibadbaxan uu maamulka gobolka Banaadir uu soo maalgeliyay isla markaana uu dhaqaale xitaa ku bixiyay sidii uu dadkan isugu soo saari lahaa una muujin lahaa inay jiraan bulsho ka soo horjeeda mucaaradka oo doonaysa sii joogista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan oo muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay sharciga ahayd 4 maalmood oo kaliya ayaa sidoo kale maanta u anbabaxay dalka dibadiisa, waxaana la tilmaamayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu muddo kororsi sameeyo xukunkana iska sii joogo wixii ka dambeeya 15 bisha May. Laakiin dad badan ayaa saadaalinaya in 15 bisha May wixii ka dambeeya aysan xaaladda sidan sii ahaan doonin oo dibadbaxyo iyo sidoo kale hadallo kaliya aysan ku koobnaan doonin, iyadoo si weyn markaasi loo filayo in mucaaradka ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn oo ka dhanaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii ka dambeeya 15 bisha May oo Muqdisho lagu arki doono ciidamo mucaarad ah oo la magac baxay badbaado qaranto, iyadoo haddaba uu socdo qorshihii ugu dambeeyay abaabul aad u culus oo xubnaha mucaaradka markaasi ay wadaan. Guud ahaan wixii ka soo kordha xaaladda Muqdisho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. Muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo kuna soo biir bogga u follow soo dheh.